sida loo isticmaalo maalmaha aad la joogtid Ciise Masiix. Dood kooxeed. Ma jeclaan lahayd adiga iyo kuwaad jeceshahay inaad Ciise Masiix ula socotaan si aad isugu dhow? Markii aad aragtay sida uu u bedelay dad kale, sidee isku bedeshay mid walbaba oo idinka mid ah noloshiisa iyo xiriirkiisa? Waxaan idinku boorinayaa inaad waqti la qaadataan Ciise Masiix idinkoo koox ah. maalin kasta waxay shakhsiyaadka siisaa hab qaas ah oo kobcisa xiriirka ay la leeyihiin Ciise Masiix marka ay isla kulmaan oo ay isla falanqeeyaan nolosha iyo waxqabadka Ciise Masiix. koowaad, ducayso oo weydii Ciise Masiix qofkaad casumi lahayd. kadib casun qofka uu qalbigaaga soo geliyo wuxuu noqon karaa saaxiib aad kugu dhow. waxay noqon karaan qaar ka mid ah saaxiibadaada shaqada ama qaar aad isku fasal tihiin. qof walba oo uu Ciise Masiix qalbigaaga soo geliyo. labaad, dooro mawduuca ah maalmaha Ciise Masiix kadibna samayso jadwalkaaga. xulo waqti iyo meel ay dadka oo dhan isku raaceen una kulma weji ka weji. telefoonka ama Skype-ga. saddexaad, kulma oo ka dooda waxbaridiisa. maalin walba su'aalaheeda waxay keeni karaan dood micno leh haddii si daacad ah looga jawaabo. waxaan idinkula talinayaa in 1 ilaa 3 maalmood dib loo fiiriyo kulan walba. weydii xubnaha kooxda ka tirsan inay fiirsadaan fiidiyowga maalmahaas la doortay iyo inay hore uga fikiraan su'aalaha kulanka ka hor. xusuusnow, wax walba waxay ku saabsan yihiin Ciise Masiix iyo wada socodka aan isaga la leenahay. Ciise Masiix waa macalinka. kaalintaada waa fududaynta wada hadalka markaad isku timaadaan. koowaad, abaabe wada socod iyo bulsho. qof walba si kooban ha uu la qaybsado dadka kale wixii uu la kulmay kulan kooxeedkii ugu dambeeyey kadib iyaga weydii inay qeexaan sida xiriirka ay la leeyihiin Ciise Masiix uu u bedelmaayo. labaad, ku hay kooxda inay aad u fikiraan. ku jira mawduuca oo dibna uga fiirsada su'aalaha dhammaadka qaybta fiidiyowga. dhiirigeli jawaabaha daacadda ah adigoo laftigaaga daacad ah. saddexaad, ha dedejinin wada hadalka. daawo waxa uu Ciise Masiix ka sameeyey dadka su'aalahooda iyo wada hadal kooxeedka. afaraad, ku dhiirigeli kooxdaada inay Ciise Masiix u jawaabaan. weydii iyaga inay wada qaybsadaan sidii ay ugu dhaqmi lahaayeen waxa ay barteen. shanaad, ku soo gabagabay duco iyo in qof walba isku dhiibo Ciise Masiix. Ciise Masiix mar walbaba wuxuu la hadlaa wadnaheenna, mabda'eenna, dabeecadeenna iyo ujeedooyinkeenna. daawo waxa Ciise Masiix uu sameeyo maalmaha aad waqtiga la qaybsanaysid Ciise Masiix.